shan kelmadood oo aan uga takhalusay nabrihii wejiga ee dad badan isoo weydiiyeen. suurad cajiibayna ka tirsan tahay. alxamdulillaah anaa ku daaweeyey. qofka daawo dhakhtareed cunaya iyo qofkaan cunayna waa anfacaysaa. waxay kaloo anfacaysaa dadka xataa dhakhtarka ka quustay oo daawo kasta la siiyey oo boomatada mari la yiri oo kiniinka cun la yiri welina nabrihi ay soo noqnoqonayaan. waxaan ku leeyahay rabbigii dhakhtarka rabbigii daawada magangal nabraha wejiga iyo jirka kaleba kaa soo baxay dhuunta daawo way wallahi billah dib damano ma soo noqonayo insha Allah ta'ala nabarkaas wejiga ama jirka kale ka soo baxo ka halay ilaahi idinkiis. bismillah dhamaantiin waa idin salaamaya meel kasta joogtaan ba Allah idin ku xafido ku soo dhawaada casharka kan muhiimka in badan waxa idin dhahaa oo idin ku soo celceliya war aayadaha ilaahay baa daawo jireed iyo daawo nafeed aayadaha ilaahay baa caafimaad taasna qofka dhaxgala ayaa dareemaya in aayaadku ilaahay daawo yihiin inteena badan afkay naga tahay laakiin daawo inay yihiin qofka dhaxgalay la macaamila garanaya biidnillah aayaadka ilaahay lianna rabbul kawn wax kasta kala dabarayay ba aayaadkiisa ku tawasulaysa wax walbana saga gacanta ku haya. hadda maxay idin sida oo idin wada bishaaradaani waa maxay? bishaaradaani waa mid ummad badan ka farxi doonta muslimiin badan ay ku farxi doonaan muuminiin badan iyo muuminaad badan insha Allah ta'ala oo xanuuna jirka ama maqaarka iskaga maaran laa. waxaa idin hayaa nasrigii iyo gargaarkii. waxaa idin hayaa aayad qayb ka mid ah oo aayad dhexdeed ku taala 5 kelmadood ka mid ah baa meelaha nabarka muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay nabaraha ka soo baxa ama qaanaha ka soo baxeen ama ha ka soo baxeen kilkisha ama dhuunta ama wejiga ama lugaha ama caloosha ama meel kale ayan kana meesha doonta noqoto ba intaan ku sheegi doono ku qoraysa isla meeshaas ku qoraysa ku xanuunaysa wejiga hadii nabra ka soo baxeen meeshaas ku qoraysa. aniga hadda waa xasuusatan hadda ka hor muuqaalo gaar ahaan markaan Turki xataa markii ugu darnayd bay ahaayeen aad ay hayeen oo intan dhan de waa sharaxnaa inta dhan waa sharax waa xasuusatan hadda waa aragtaa ilaahay baa laayay dhamaantood oo de haraadigoodii baa ku sii harsan kadib waxay ugu reebeen marka iska daaweeyay madow bara ama haara waxaan dhigi karo marka ayagana way sii baabaayaan waa sii socdaan liana waxa haday 2 sano ku hayeen ama 1 sano ku hayeen daqiiqad kaga takhalusi kartid laakiin waxaan ku sheegayaa natiijada waxaad arkeen hordhac marka horaaba sii arkinba marka waa sii soconaysaa daawo dadka loo qora 1 sano jiray Soomaa yani marka ugu horeysa hawshu way sii bilaamin xanuunkaas weynaa oo qofka ku daahay qayb bay ka tahay marka midaan marka alxamdulillah ana ku daaweeyay ana ilaahay subhanahu wa ta'ala daawooyin kale way jireen oo yani daawooyinka kalena ma xaqirayno insha Allah ta'ala qofka daawo dhakhtareed cunaya iyo qofkaan cunayna way anfacaysaa ma ku dhahayo dhakhtarka aadan isbaarin daawada ha soo qadan ma ku dhahayo soo qaado tan labadaba iskaalmeynaya marka labadaba anigu waa soo kaalmaystay alxamdulillah laakiin aayadan 5 kelmadood ka kooban yani natiijo weyn baan ku tuhmaya alxamdulillah rabbil alamin wa aragta maantay aad iyo aad waa kala dareemaysan muuqaalada hore soo fiiriyay kan bal isku fiiriyay billahi calaykum iyo muuqaal usbuuca dambe oo bariga duubay baa jiro wali aan soo gudbino usbuuca dambe aan soo gelin doona asaga laftigiisa waa dareemi doontaa inkastoo nabru ay soo weyn laakiin rafaadka ay ku reebeen ay ka muuqdaan kaasna waxa laga yaabaa muuqaalkaas usbuuca dambe markuu soo galay inaad aragtaan oo dhaadaan xoogaas macnaha ma hadda soo duubtay muuqaalkaas ma soo duubin marka 5 kelmadood waa ku qoraysaa dadka khad ka heli kara looxa uu qoraya biyo ku dhaqanaya ku mayranaya meesho marnay qofka kalena qalinka caadiga buu ku qoraya hadii caloosha laga hayo nabar ka soo baxay isla bartaas ku qoraysa hadii wejiga ka soo baxay isla meeshaas ku qoraysa 5 kelmadood waa ku feegaaraysa waan ku qoraysa insha Allah ta'ala natiijada waad arki waa sii wadin waa soo celcelin waa aayad 5 kelmadood ka kooban waan uga takhalusay nabrihii wejiga ee dad badan isoo weydiiyeen. aayadaas insha Allah ta'ala waa aayad cajiiba suurad cajiibayna ka tirsan tahay suuratul baqara ku jirta aayadan aayad dhameystiran ma ahan waa aayad bartamaheed ilaahay wuxuu yiri suuratu baqara aayadaas uu ku yiri fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat inta bas way waa 5 kelmadood فأصابها وكلمة جملة فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت شنتاوي فأصابها هوصل من كوسو قرية
وانا حافظين كرتان بوحوين معنا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت يعني maxaa asiibay baleer in kasto de ay ka waramayso odadqo beera lahayo beeri kaasi mithal bal lagu bixinayo tusaale shirkiga iyo maaragtay dadkiisa lagu tusaaleynayo laakiin anagu intaana ka soo qaadanayna munaasabadan waxa weeye waxa asiibay nabarkii weynaa ee halka ku yaalay dab oo gubay weeye macnaheedu الله أكبر وقبت مرك فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت اختار باخود بلانسان قلين قلين كقلب بناهن داود قادو لكن كلام كإلهي باكوري وحيكلو أنفعيسا دادك حتى دخترك كقوستي أو داو كستلسي أو باماتادا مري لير أو كنينكا عن لير ولينا النبرية ايسو نغنيان مركي داود المريو وابابا ايان مركي لقوي ويسو يعني الدب ايسو نغنيان دخترنا كقوستي داونا كقوستي وحان كلها ربك دخترك ربك داودا مغنقل ربك دخترك وكالي دختر هذا كداشي داوديس نبرها وجهك iyo jirka kalaba ka soo baxay dhunta daawo wallahi billah commentida qaar walaalaha qaar isoo qoreen yani aad ugu faraxo kamida gabar dhakhtar u ballansanayd dhakhtarka ay u ballansanayd waxa laga qalayay dhunta bura ka soo baxday intaysan garin usbuuciyo ka hor dhakhtarka ballantiisa bay magacaanta soo gudbinay asmaada ilaahay kamid aha isticmaashay meel ay ku libiqday nabarkii iyo buradii weyneyd ee dhakhtarka qalliinka halista u gali lahayd waa la waayay waa la yaabay waa magac ilaahay ma buro xun buu daahaya subhanahu wa ta'ala ayaa fadligiisa halka inuu galiyay aayadan waa lamid gabdhaha nabarku ka soo bixin in badan la xastay ee nabarku soo noqnoqonayo ama dhicaan ha yeesho ama wax kale ha yeesho buraha noqdo caloosha lagu sheego xubinka taranka lagu sheego dhinaca dambaha lagu sheego dhunta lagu sheego dhegtaha lagu sheego indhaha lagu sheego wajiga ka soo bixin findoob hal yiraahdo wax kale hal ayan kana adugu xanuunada iyo waxyaalaha maqaarka haleelo dhan isku dar daaway u tahay فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فيه نار فاحترقت فيه نار فاحترقت فيه نار فاحترقت وقبياه نبرة قال سومالي وقبان طبي ولا تقال وجوبيان سيدو كلنا نبرها كانسركو إلهي بانك ويدينيا ذلك حنوصلوا كقاعدة أنت كلام سوسو جالسين نبرها وكانسركو صار ولا كوبا حبس كدالين كواس كالي وكالي عيدا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت دب دمنا ومصون غريب إن شاء الله تعالى النبركاس وتشجع أما شركة كلاكاس وبحكة هلي إلهي إذن كيس نيد وناتية يقين أن نقصبين إن شاء الله تعالى إلى أتكجت تخلص السدود يعني إن الماشى كقرتي إن يعني ورق أنت كقرتي بيكون ميرت الله أنت كقرتي خط كم ميرت كل قديد إن التهليل كنت فشتها وحكى داود كروي دا ماشى أنا كقرت داود كروي ست تهليل كنت فتهليش كوع عليك بقلال تير كوع عليك كل رقم ماشى كوع رقم أما قعنت تأثرت حتى هذا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كعل علي إلحاح كسمة إصرار كسمة استمرارية الله إمو إن شاء الله تعالى وحاوك التخلص يسا أطلب سطح وكما سنتين داوشة وناكسن يسي قد بنت ولا لها كلا لو داقسان يشار قرينتا لايك تانا سيسان الله إذن سيادين كلا تاقيرو هيدن كو تاقيرو آيات داسو عافي مانا هيدن كو سيو بارك الله فيكم